socdaalkii Samadoon muddadii koobnayd ee uu xafiiska joogay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu awoodda isugu geeyay xaqiijinta qodobo muhiim ah doorashooyinka amniga dib u heshiisiinta qaar ka mid ah bulshada 22 November 2020 waxa uu safar ku tagay maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si uu xogaal ugu noqdo arrimaha hortabinta leh ee maamul goboleedkaasi Koonfur Galbeed oo dhageysto bulshada afar cisho oo uu ku sugnaa Baydhabo waxa uu kulamo la qaatay maamulka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo uu kala hadlay arrimaha amniga doorashooyinka nabadeynta la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta adeegyada bulshada waxa uu furay mashaariic hor leh oo dawladdu ka hirgelisay Koonfur Galbeed sida xarumo waxbarasho caafimaad iyo cilmiyeedyo isaga oo dhagax dhigay mashaariic hor leh oo bulshadu si weyn uga faa'iideysan doonto sida isbitaalka xaafadda Barwaaqo xarunta xanaanada caruurta macadka barashada diinta xarumo wasaaradeed iyo adeegyo kale oo muhiim ah waxa uu booqday ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira nabadiidka waxa uuna ku dhiirigeliyay hawsha ay u hayaan dalkooda dalkan cid aan idinka ahayn uma maqno cid aan idinka ahayn ma difaacayso cid aan idinka ahayn front ama ma joogto xuduudaha shacabka Soomaaliyeed geesinimadiina awoodiina muruqiina ayuu ku seexdaa wayna idin ogyihiin sharafta aad leedihiin iyo karaamada oo ah inaad cadawga ka difaacdaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ciidanka joogay agaarkiisana waxaan leeyahay hambalyo iyo kuwa banaanka kala jiro waa ku faraxsanahay sida geesinimada leh oo aad u difaacaysaan dalkiina walaalayaal rag iyo dumar waxaan idin leeyahay hambalyo qalbigeena waa idinka warhayaa waxa aad dib iyo u maraysaan qorraxda iyo waa difaaca dalka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin ilaahay garabkiina ha galo annagana garabkiina ayaan taaganahay har iyo habeen aadin ku seexanaynaa idinkana nagu seexda aad ayaa u mahadsantihiin bulshada reer Koonfur Galbeedna waxa uu kula dardaarmay isku duubni iyo inay nabadda ka shaqeeyaan dardaarinkaygu waa in aad sii xoojisaan iskaashigiina nabadgelyada ka shaqeysaan la dagaalantaan nabadiidka argagixisada ah maamulkiinana la shaqeysaan oo aad garab siisaan halku dhagaygu waa hadal yar iyo hawl badan idinkana ku dadaala ammaanka iyo xasiloonida nabadda naas la nuuga leh 12 December ayuu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble u socdaalay magaalada Garowe xarunta maamul goboleedka Puntland wafdiga ra'iisul wasaaraha waxa si weyn u soo dhaweeyay madaxda iyo shacabka Puntland halkaas oo ay ka bilowdeen wadaxaajood iyo kulamo uu la yeeshay madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash kulamadan ayaa lagu falanqeeyay xaaladaha dalka ee xilligan kala guurka ah wada shaqeynta dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka iyo sidii hore loogu sii ambaqaadi lahaa heshiisyadii doorashooyinka laga gaaray waxaan aad uga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa dawlihii badnaa ee ka qabteen Puntland muddadii ay joogeen oo runtii wasiiradii la socday ee dhammaan wasaaradihii dhigooda halka joogay shaqooyinkii hore ay wadeen iyo shaqooyin cusub oo runtii ay isla qorsheeyeen sida u socon lahayd ka wada qabtay fursad badan aan u helnay inaan xaaladda waddanka iyo waddanka siduu yahay iska wareysano ra'iisul wasaaraha ayaa intii uu joogay magaalada Garowe u kurgalay arrimaha u baahan in deegaamada Puntland gacan laga siiyo sida dhaqaalaha bulshada iyo horumarka dhinacyadaas laga sameeyay isaga oo kulamo la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo la isku dhaafsaday talooyin waxtar u leh dalka iyo sidii ay bulshada rayidka ay u qaadan lahaayeen doorkooda kaga aadan horumarka iyo dib u heshiisiinta dalka kulankan wuxuu ahaa kulan bulshada rayidka Puntland ee la kulantay ra'iisul wasaaraha kulan aad u qiimo badan qalbi furan si fiican oo noogu waramay
annaguna dareenkan qabna oo xilliga doorashada Soomaaliya iyo walaaca haya bulshada rayidka ahayd si fiican soo afgaranay waxaana soo u jeedinay talooyinkeena ku aadan waxyaabaha la isku hayo doorashooyinka in xal laga gaaro wasaarana ballan wuxuu noo qaaday inuu qaybtiisa geysan doono haddana wuxuu u socday ay tahay in xal laga gaaro runtii aad ugu faraxsanahay wuxuu noogu warramay si waafi ah oo aan dhihin karno si aan siyaasadeysnayn ra-iisul wasaaruhu waxa uu waqti la qaatay bulshada Garowe isaga oo booqday goobaha ay shacabku ku caweeyaan iyo ganacsiyada Garowe halkaas oo uu bulshada ku gacan qaaday si weyn loogu soo dhaweeyay socdaalka ra-iisul wasaaraha ee Puntland oo 4 cisho qaatay ayaa ku soo dhamaaday natiijooyin gundhigoodu yahay horumar iyo iskaashi marka hore waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa soo dhaweyntii qiimaha lahayd iyo sharafta lahayd ee uu ii soo jeediyay madaxweyne Siciid Dani madaxweynaha Puntland madaxweyne ku-xigeenka golihiisa wasiirada xildhibaanada aad ayay u mahadsan yihiin waxaan mar labaad iyagana rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan shacabka Puntland gaar ahaan shacabka ku nool caasimadda Garowe oo ah shacab xaqiiqdii meel weyn igaaga yaallo aniga ka ra'iisul wasaare ahaan waa shacab ii muujiyay soo dhaweyn iyo farxad iyo reereyn aadna ii soo dhaweeyay inta haddaan kaga gudbo mahad celinta qorshihii aan halkan u imid iyo hawlihii aan u imid alxamdulillaah waa laba qaybood ka koobnaayeen mid ah hawlihii xukuumadda ka waday sida caadiga ahaa iyo xiriiradii ka dhaxeeyay dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka ahaa si xoojintiisa ayaan halkan u imid wax badanna way noo qabsoomeen inta ugu badneedna way noo qabsoomeen haddii ahaan lahayd waxbarashada cadaaladda iyo dastuurka guulo badan oo waaweynna waa ka gaarnay alxamdulillaah taasna ilaahay ayaan mahad iska leh waxaana sidoo kale uga mahad celinayaa madaxweyne Dani oo kaalin xoog leh ka qaatay sidii howlahaas ay noogu fududaan lahaayeen qorshaha labaad oo imid oo ahaa tii doorashada meel baan isla soo gaarnay waxna waa noo dhiban yihiin waxna bilaabay noo ahaayeen insha Allah mar dhowna wixii noo dhinaa waa dhammaystiraynaa dadkana shacabkana waxaan leeyahay Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Puntland isdajiya qalbigiina khayr u sheega wala doogaysan ayaa la dacroobin wax badan ayaana noo dhiman insha Allah wadadii dheereedna cagta waa saarnay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ra-iisul wasaare Roble ayaa galabnimadii 14 Diseembar ka duulay garoonka magaalada Garowe isaga oo gaaray magaaladaasi Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedkaasi Galmudug halkaas oo si diiran lagu soo dhaweeyay daawadayaal waxaa intaasi noogu eeg muuqaalkii aynu warbixinta uga diyaarinay qaar ka mid ah safaradii iyo socdaaladii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdilcasiis Siciid Maxamed Khan inta aynu muuqaalka xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo